السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام أحباب الكرام أمة الإسلام إخوة الإيمان، الليلة هي ليلة الجمعة. أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة على الحبيب صلوات الله ربي وسلامه عليه. عوى هبينك صوغلا يا جمعة، waxaan naftayda iyo idinka aan jeclaystay in aan idin soo xasuusiyo in aan badinno salliga nabigeena salawaatullaahi rabbi wa salaamuhu calayh. maxaa yeelay habeenka jumcada soo galaayo fiiha talabun min alxabiib, nabigeena salawaatullaahi rabbi wa salaamuhu calayh wuxuu naga dalbaday bian nuktira asalaatu wassalaamu calayh, in aan badinno salliga nabigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh. idan maadaa tantadir? ibda' ilaan, maxaad sugay? haddaba bilow salliga nabigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh. markaad codkayga aad maqashidna waxaad ku dadaashaa qof walba muslim ah in aad u gudbisid, si adigana ajarkaasi aad ka qayb qaadatid. qaala alxabiibu salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh, man nasiya asalaatu calaya khati'a طariiqu اljannah. man nasiya ay taraka camdan, markaan ma laga wado qofka hadduu hilmaamo ma aha, waa qofka oo kas u dhaafo oo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ku sallinaynin. qofkaasi nebigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu dhahay khati'a طariiqu اljannah, ay aqta'a طariiqu اljannah, waddada ama jidka jannada ayuu qofkaasi qalday. waxaana ognahay allahu subxaanahu wa tacaalaa intuu ummadda nebiga sala allahu calayhi wasalam uu amrin in ay ku salliyaan nebigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh, allahu jalla jalaaluh asiga ayaa ku salliyey, kadibna malaa'igta ayuu amray, kadibna anaga ayuu na amray in nabigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh aan ku sallinno. allahu subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ballan qaaday qofkii hal mar ku salliyo nabigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh in 10 mar ayuu allahu subxaanahu wa tacaalaa u naxariisanayo. acdamu mataalib addunyaa, talabka oo adduunkan oo maanta ugu weyn waxa waaye an yakfiyaka allaahu alham, in allahu subxaanahu wa tacaalaa uu kaa kafaala qaado murugta iyo walwalka iyo dhibaatada maanta adduunka taallo. wa acdamu mataalib alaakhira, talabka ugu weyn oo qofka ibnu aadamka uu u baahan yahay oo ay tahay maalinta aakhira waxa waaye an yakfiraka allaahu laka damb, in allahu subxaanahu wa tacaalaa dembigaaga cafiyo. haddii aad rabtid in adduunkan oo lagu kafaala qaado oo shar ibnu aadam insi iyo jin shartooda in lagaa kafaala qaado, haddii aad rabtid in allahu subxaanahu wa tacaalaa oo dembigaagana uu cafiyo haddaad rabtid, maxaa yeelay jannada waxa na hortaagan waa dembigeena. mar haddii dembigaaga la cafiyo janno waad galee. labadaasi haddaad rabtid waxa lagu helaayo wahumaa madmuumaani fi likhaari min alsalaati cala alxabiib, labadaasna waxaa damaana kuu qaadaa haddii aad badisid salliga nebigeena salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh. hada laysa kalaamii bal huwa kalaamu alxabiib salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayh.
هذا كان أنكو شيغايو هذا أنيغا أنكو شيغايو كلمة أما هذا الكيغا ما وهذا النبي صلوات الله ربي وسلامه عليه أنو شيغاي سحابي لده جري أبي ابن كعب إله كرى للنقضي نبي صلوات الله ربي وسلامه عليه أيا وحو أدهي أجعل صلاتي كلها مرول بوقتي غالبا بدنا وقتي وحن جلنا صلي النبي صلوات الله ربي وسلامه عليه اسمع ماذا قال الحبيب قال الحبيب صلوات الله ربي وسلامه عليه إذن تكفى همك بمعنى أي صهي يكفيك الله همك في الدنيا وحول بأدون كان أو شر شيطان إيا شر إنسي إيا وحول بأدون كان رباطة إلهي سبحانه وتعالى أياكو كفالة قاضى هديئات بدي ستصلق النبي صلوات الله ربي وسلامه عليه كاسي كلمية لا بل قال الحبيب صلوات الله ربي وسلامه عليه ويغفر لك ذنبك ذنبك نوال وعفنا وأيتها مالنت آخرة والله سبحانه وتعالى أيا ذنبك عفنا هديئات بدي ستصلق النبي صلوات الله ربي وسلامه عليه إذن محادما هدي الله سبحانه وتعالى كفالة قاضايو أدون كان إن شر شيطان إيو إنسي إيو جن بلغو كفالة قاضايو أو ذنبياغانا لغو عفنايو لبضا السنة وحا آتكو قاريسا وحواي صلق النبينا صلوات الله ربي وسلامه عليه قفك ابن آدم كوحا لوبا هيهي إن مرول بأو نبينا صلوات الله ربي وسلامه عليه وكصليو خاصة هبينك جمعة صوغلايو يوم مالنت جمعة إن صلق نبينا صلوات الله ربي وسلامه عليه أبضيو وحن الله سبحانه وتعالى كبريا دمانتنا أنجي والدينتنا انت نول إلهي سبحانه وتعالى هنوضصي عمر داري عافمات وعبادة سبحان الله وحن الله سبحانه وتعالى كبريا انت ولال والدينتنا إلها أوضا نحريستو قبورتوضا إلهي واسع ودقو قبورتوضا إلها ودقو روضة من رياض الجنة بعد قدنا إلهي منفذنا يو هذا وصلوا وسلموا على خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله ربي وسلامه عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.